alaab iga talaalka Ethiopia ma doon karo waa la soo celiyay waka xadkii uu xiran yahay ciidamada saasudada saaka ka saaqadkii wana xiranahay cuntada manaafacaadkii waa soconaya dadkina waa kala xirmayaan saaka waxa aanu qaadano saaka lagu waa baristoon taas salaadii markay soo kacnay way socdaan wala leeyahay saaka qaadka uu maray waxa khudaarta imka dajinay wataa qaad la rogayba magarat dadkina waa joojiyay ودي بنا لوسعلي ما قرأت marka waxaan leenahay dadka meesha waxa la magaalo baxaafid saqatay halkan u soo bariis doonta saaka caruurtii lama karo inay bariiskii xaafadii lama karo yaan gurigeygii saaka ka soo toosay shaqadayduna waxay ku xidhnayd halkan yar Ethiopia in soo eegaysa talowgaan sidii waa la soo celiyay ummadina wata jogooda taagan markaas sidana qabtii weyneed baa nagu dhacday saan deeyay garan mayna dawladda waxaan leenahay codkan gudbinayna wuxuu yahay bal in laga fiirsado way isla wada kambarsanaysaa dawladda ka fiirsato kala xidhkan hadda xagan saray naga timid Ethiopia laftigeedu dan weyn bay nagu qabtaa raashinka dhan ba halka uga gudba iyaduna ha ka fiirsato dadkana ka daysata xadka ay ku xidhayso magaaladana waa magaalo qura ma aha laba magaalo kala go'an waa magaalo isku furan joog jaale oo dhankan iyo dhankan dadkii labada dhanba uu joogaa marka ma habboona in dadkii halka guryaha ku lahaa xaqan ku gadoomaan taasina waa nasiib darro bal ka warrama idinka dadkii saaka khudradda u doontay daanta ilaa hadda way ku xaniban yihiin oo wax soo daynay ma jirto kuwii halkan u talaabi lahaayay dantooda wadan lahaana oo idinka arkaya oo wax talaabasho ma jirto waxaan leeyahay marka dawladda Soomaaliland bal idinkuna maxaad ka oranaysaan arrinka isaga ah in labada daamood ma kala maarmayaan oo waa laba daamood oo isku baahan kana dantiisu u yimaada kan kala dantiisu u talaaba waa laba daamood oo waxaan oran karaa runtii aad iyo aad isku dhaxgalay oo bulshada dad Soomaaliyeenu nahay dad kala shakiye manihin marka waxaan leeyahay bal Soomaaliland idinkana arrinka maxaad ka leediin